saacaddu hadda waxa ay ku dhowdahay 3:00 habeenimo waxa aan runtii shirkan jaraa'idii u saarnaa ama u daaranaa in aan bulsho weynta reer Somaliland ogeysiino in ay soo xirantay tirintii codadkii laga dhiibtay ururada iyo madaxweynaha ee degmada Hargeysa taasaad ula soconaysaan sidii hore halkan aan uga sheegnay waxa weeyaan wax natiijo ah oo ilaa imika lagu dhawaaqay oo ama hordhac ama rasmi ma jirto cidda uu xeerarkeena iyo shuruucdeenu siiyeen baa ku dhawaaqi doonta taana shacbiga waxaan leeyahay idinku oo mahadsan sidii aad intii kaleba u sugteen ha loo sugo natiijada doorashada aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo runtii halkan ay mudan tahay maadaama aan nahay daneeyaashii loo shaqaynayay ee shacbiga ka wakiilka ahaa ay mudan yihiin in loo xuso oo loo mahadnaqo waxa ugu horeeya dee hay-adda komishanka doorashooyinka qaranka oo hogaaminaysay mashruucan doorashada ururada iyo xisbiyada ee dhacday 13 November 2024 waxaan qiraynaa haddaan nahay daneeyaasha siyaasadda in muddadii aan ka wada shaqaynaynay ama aan ula shaqaynaynay komishanka hawsha ay hayeen inay ahayd hawl hanaankeeda iyo hufnaanteeda iyo maamulkeeduba uu yahay mid runtii degan laga wada tala wadaag ahayd lagu wada qanacsanaa laga wada tashanayay go'aankana la wada qaadanayay runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan kaloo bogaadinaynaa de shaqaalaha iyaguna waqtiga u soo jeeda ee ka shaqaynaya hawshan waxaan kaloo bogaadinaynaa oo xusid mudan ciidamada Somaliland ee nabadgelyada hadday tahay militariga hadday tahay booliska hadday tahay debdemiska hadday tahay asluubta ee xilligan inay sanaaduuqda ilaalinayaan dhaxanta u jooga ama ilaa iyo 13 November ama intii ka horeysay ammaanka sugista doorashada ku hawlala ayaa ah rukun weyn iyaga iyo madaxdooda iyo maamulkoodaba in loo mahadnaqo ugu dambeyntii iyadoo de komishanka doorashooyinka uu si rasmiya xaq u leeyahay inuu ku dhawaaqo natiijooyinka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu markhaati ka nahay oo aan caddaynanaa doorashada maanta Somaliland ka dhacday inay tusaale u tahay saldhigga dimuqraadiyadeed iyo geedi socodkiisa inaynu nahay maanta mid kuwa wadada cagta saaray isla markaana geedigelinteedu ay dhammaanteed shacbiga Somaliland iyo xukuumad iyo shacbi inooga baahan tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin salaam waxaan halkan ka bogaadinaa sidii horeba loo sheegay maxaa la yiraahdaa qaranka Somaliland guud ahaan ay ugu horeeyaan shacabka reer Somaliland tartanka fiican ee nadiifta ah ee saxarka tiran shaqada fiican ee noo qabsoontay iyaga la'aantood la shaqayntoodu aanay inoo hirgasheen komishanka inoo hirgasheen magaca Somaliland aanay ku hirgasheen waan ku bogaadinaa haddii inta ay natiijada si rasmi ah u soo shaacinayaan komishanka doorashooyinka waxaan leenahay oo aan faranaa bulshada reer Somaliland inay meel uga soo wada jeedsadaan gacmaha isqabsadaan walaalnimadooda iyo wada jirkoogana ka shaqeeyaan ciddii heshana la taaniyadeeyo kii kalena uu yahay uu la shaqeeyo cidda maanta talada qaranka Somaliland qaban doonta asxaab iyo ururana inta hadhay iyo inta hadhi doonta iyo inta soo bixi doontaba ay taaniyadeeyaan una hambalyeeyaan kuna garab istaagaan hawsha qaran ay maalmaha kamida ay inta 5 sano soo socda mas'uuliyadooda hayn doonaan aad iyo aad baa u mahadsantiin maanta taariikhdu tahay 18 bishii 12 2024 waqtiguna uu gaarayo 3 subaxnimo waxaan halkan taaganahay annagoo ah xubnaha matalaya xisbiyada ururada ee la shaqeeya komishanka doorashooyinka qaranka inaanu shacweynaha Jamhuuriyadda Somaliland aanu halkan uga caddeynayno markhaati ka ahayn isugeyntii iyo tirintii codkii ka yimid goobaha degmada doorashada Hargeysa oo ah degmada ugu weyn markay noqoto xagga cod bixinta oo muddo 3 maalmoodaba soo socotay runtiina shaqo dheer ahayd sida hore loo sheegay komishanka doorashooyinka qaranku ay shaqo fiican qabteen
iyadoo aanu ogeyn inay shaqayn jireen 16 saacadood 17 saacadood iyo in ka badanba oo runaantii ay waqti badan geliyeen xilligeeda ay maaragtay ku dhameeyaan sida loo socdo tirinta codadku waxay maraan 4 heer oo goobta degmada gobolka iyo heer qaran waxay degmada Hargeysa ay ugu dambeysay tirintii degmada doorashooyinka dalka oo dhan si gudoomiyuhu noo sheegi doono insha Allah iyadoo aynu ka arkin warbaahinta in goboladii kale oo dhan ay soo dhameystirmeen waxaan markaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaynaa inta uu komishanka doorashooyinka qaranku dhameystirayo tirinta iyo sugeynta codadka inay sugaan oo nambarada iyo tirooyinka lagu baahinayo warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada oo ah wax aan ku fadhiyin tiro sax dhaba inaanay u degdegin waxaan halka ka cadeynayaa anagoo ah xubnaha ka socda xisbiyada ururada inaan wada shaqeyn dawladda leenahay komishanka qaranka in ay ku shaqeeyaan qaab waafaqsan xeerarka doorashooyinka iyo shuruucda kale ee dalka taasina ay mar walba kor u qaadayso kalsoonida lagu qabo doorashooyinka qaranka oo maaragtay dadaal badan muujiyo ugu dambeyntii doorasho qurux badan baa inoo dhacday goobjoogayaashiina soo boqdayna ay ku tilmaameen inay ka mid yihiin doorashooyinka ugu heerka sareeya Afrika hadday noqoto dunida saddexaadba warnaantii aad inagu bogaadiyeen taa waxaynu ku sii wadi karnaa quruxdeeda inaynu sugno natiijada isla markaana aynu silbaxnimo oo maaragtay heer sare aynu soo dhaweyno natiijada soo baxda annaguna aanu diyaar u nahay mar walba inaanu kor u qaadno kalsoonida lagu qabo guddiga doorashooyinka qaranka anigoo ku hadlaya afka komishanka doorashooyinka qaranka iyo xubnaha ay garab taagan ee matalaya asxaabta iyo ururada siyaasadda waxaan marka hore u direynaa tacsi tiiraanyo leh dhammaan bulshada reer Somaliland uu ka geeriyooday madaxweynaheenii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo berina la aasi doono dhammaan bulshada reer Somaliland waanu ka tacsiideynaa qoyskii iyo qaraabada waanu ka tacsiideynaa isagana Ilaahay jannatul firdaws ha geeyo iyadoo uu qaranku ku jiray 2 maalmood oo madaxweynaha qaranku uu fasaxay haddana waxaanu door bidnay inaanu wadna hawshii komishanka laga sugayay iyadoo oo loo dhagdhigayay ku dhawaaqista natiijada doorashooyinka sida ay sheegeenba tiimkan task force-ku waxaanu caawa halkan xilligan dambe aan u taagana inaanu ku wargelino degmadii ugu ballaadhnayd ama gobolkii ugu ballaadhnaa Jamhuuriyadda Somaliland uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo Ilaahay mahadii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhamaaday waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer Somaliland in dhammaan goboladii Jamhuuriyadda Somaliland ay dhamaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta reer Somaliland taasoo ka soo gudbay heerkii koobaad ee ahayd heer goobeed caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo waxaynu gudbi doonaa insha Allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin wali waxaynu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee komishanka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyay xeer number 91/2023 waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo komishanka doorashooyinka qaranka waayo ku dhawaaqista natiijada hordhaca ee komishanku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo in wax alaaliyo wixii cabasho ah ee daneeyaasha siyaasaddu ay ka qabaan la xalliyo si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah waxa Ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilligaa u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan nala ansixiyaan isugeynta heer degmo
oo ahayd 373 goobeed ka koobnayd 373 goobood oo degmada Hargeysa ah taas oo run ahaantii waqti dheer qaadatay ilaahay mahadiina caawa noo soo gabagabowday waxaa isla caawana soo gabagabowday degmada Gabiley oo ahayd labadii degme ugu dambeeyay inoo soo xarooda ma hadda ilaahay ka soko waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka kala duwan ilaa hadda heegan buuxag ugu jira sidii ay si nabadgelyo ugu soo xaroon lahaayeen sanaaduuqdii iyo agabkii iyo gaadiidkii iyo shaqaalihii commissionku uu howlgeliyay ee ka shaqeynaya doorashooyinka waxaanu leenahay berri maadaama oo ay tahay aas qaran waxaad naga warsugi doontaan insha Allah hawsha aaska qaranku markay noo dhamaato fadlan waxaan idinku codsanaynaa dhammaan bulshada Somaliland in natiijooyinkan iyo doroskan la wadaagayo laga warsugo commissionka doorashooyinka qaranka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa mar labaad xubnaha ilaa hadda na garab taagan